Isbahaysiga dhexe ee Yuhuudda Faransiiska ayaa ku baaqay Arbacadii Abriil 13, 2022 in dib loogu codeeyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Emmanuel Macron doorashada halka wareeg harsan tahay ee Faransiiska. Hadalkan ayaa imanaya kadib markii hogaamiyaha midigta fog ee Marine Le Pen ay sheegtay inay mamnuuci doonto shaciirta Yuhuudda haddii ay ku soo baxdo doorashada. Ururka dhexe ee Yuhuudda ee Faransiiska ayaa sheegay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press in Marine Le Pen oo ah siyaasiga garabka midig ee la loolamaya Macron ay khatar gelin doonto xorriyadda diinta iyada oo ku tala jirta inay mamnuucdo gowraca xoolaha sida ay qabto shacairta diimeed. Ururku waxa uu intaa ku daray in qorshaha Le Pen uu sidoo kale si siman u khuseeyo muslimiinta, taasoo ka dhigan weerar culus oo ka dhan ah suurtagalnimada in si xor ah loo guto shacairta diiniga ah. Ururka ayaa sidoo kale xusay in Macron uu cadeeyay mowqifkiisa inuu ilaalin doono shacairta gowraca. Oraahyada Le Pen ee ku saabsan shacairta diinta. Arrintan ayaa timid kadib markii murashaxa midigta fog ay u soo baxday wareegga ugu dambeeya ee doorashada madaxtinimada Faransiiska. Marine Le Pen ayaa ballan qaaday inay ka jawaabi doonto dalabka ah in la joojiyo xoolaha lagu qalo hababka Yuhuudda iyo Islaamka haddii ay ku guulaysato doorashada madaxtinimada. Dhanka kale waxa ay soo cusboonaysiisay go'aankeeda inay la dagaalamayso waxa ay ku tilmaamtay fikirka Islaamka kelitaliska ah. Shir jaraa'id oo ay qabatay Arbacadii Abriil 13, 2022 Le Pen ayaa sheegtay intaasi aysan macnaheedu ahayn in la mamnuuco iibinta hilibka xalaasha iyo kosherka, sababtoo ah bay tiri taasi haddii kale waxay ogolaanaysaa in la soo dhoofiyo hilibka ay cunaan muslimiinta iyo Yuhuuddu. Le Pen waxay caddaysay in aan la baabi'in doonin bakhaarada hilibka ee xalaasha iyo kosherka. Waxaanay tiri waxaad ogtihiin in wadamo badan oo Yurub ah ay soo saareen awaamir la xiriira daryeelka xoolaha iyo shuruudaha bedqabka, kuwaas oo u baahan in la dilo xoolaha ka hor inta aan la gowracin. Dhinaca kale, murashaxa midigta fog ee Faransiiska ayaa dib u soo cusboonaysiisay go'aankeeda in ay la dagaalamayso waxa ay ku tilmaamtay fikirka Islaamka kelitaliska iyo ujeedada ah inay mamnuucdo xijaabka. Le Pen oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri waa inaanaan meel looga tegin fikirka Islaamiyiinta. Taasi waa sababta aan u diyaarinay sharci ujeedadiisu tahay in arrintaa laga mamnuuco dalka Faransiiska, lagana mamnuuco maalgelinta iyo ururada u ololeeya. Gabadhan la tartamaysa Macron ayaa tiri waxaan u arkaa xijaabka Islaamka inuu calaamad u yahay fikirkaas kelitaliska ah, waana sababta aan u doonayay inaan haweenka oo dhan ka saaro indhashareerka. Emmanuel Macron oo ah murashaxa dhexdhexaadka ee Faransiiska ayaa kaalinta koowaad ka galay natiijada doorashadii madaxtinimada ee dhacday Axad hore, isagoo helay 28.1 codadkii la dhiibtay. Marka loo eego natiijada hordhaca ah, halka murashaxa midigta fog Marine Le Pen ay ku soo baxday kaalinta labaad oo heshay 23.3 si ay ugu tartanto wareegga labaad. Wareegga labaad ayaa loo ballansan yahay 24 bishani Abriil.